BBC Afrikada Bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan dhageystayaal waxaad sidoo kale toos nooga dhageysanaysaan boggeena Facebook ee BBC News Somali. waa subaxnimo Axad ah bisha Agoosto waa 9 sanadka 2020. idaacadda subaxnimada saaka waxay idin soo jeedin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaaladda Lubnaan oo sii xumaanaysa iyo dibadbaxayaasha oo laga saaray xarumo ay dawladdu leedahay oo ay saacado haysteen. maxaa dhici kara haddii ay rabshaduhu sii socdaan? mudaharaadka haddii uu isu bedelo kooxa ku-xaysigii waxay iman karta mudaaharadii dhowrkii bilood ka hor ee la isku dilay kuwan shacabkan waxa weeyaan siday u kala taageersan yihiin intay iskugu dhex yimaadaan shaaraca ay isku dhex dilaan taasina dee dawladdu taaguma hayso. cudurka coronavirus oo ku soo laba kacleeyay magaalo ay ku badan yihiin Soomaalida Denmark. deegaano ka tirsan Puntland oo xeer ay dhigteen sanado badan ka hor uu ka caawiyay in dhulkaasi ay ku nagaadaan duurjoogta. iyo abwaan tix cajiib ah ka tiriyay cisbitaal uu ugu magac daray cisbitaalka Boholyowga oo si mali awaal ah lagu dabiibo dadka caashaq u hayo. ciyaarihiina waxaan idinkugu hayaa Chelsea iyo Napoli oo ka haray Champions League. idaacaddan waxaa soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. qodobadaas oo faahfaahsan haynoo dambeeyaan marka hore wararka caalamka iyo Axmed Nagaashe. mahadsanid Kawsar. dalka Brazil ayaa haatan xaqiijiyay in fayraska corona ay u dhinteen dad tiradoodu kor u dhaafayso 100,000 oo qof. waxaanu sidaa ku noqonayaa dalka labaad ee ugu dhimashada badan dunida oo waxa ka horeeya Mareykanka. madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa qoraal uu baraha bulshada ku faafiyay ku sheegay inuu ka xun yahay geerida dhammaan dadka u dhintay cudurka, laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in nolosha dadka reer Brazil oo dhan ay ku weyntahay isaga oo ay mudan tahay in la dhowro. madaxweyne Trump ayaa saxeexay qarar madaxweyne oo gargaar lagu siinayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay saameynta taban ee fayraska corona ku yeeshay dhaqaalaha Mareykanka. waxaana kamid ah taakulayntaasi guna la siin doono dadka bilaa shaqada noqday. 5 milyan iyo dheeraad qof oo Mareykan ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhacay cudurka fayrasku. hogaamiyihii hore Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa madaxweynaha talada haya ee Gotabaya Rajapaksa oo ay walaalo yihiin u dhaarin doona xilka ra'iisul wasaarenimo. xisbigooda ayaa guul weyn ka soo hooyay doorashadii baarlamaanka ee dalka ka dhacday toddobaadkii hore. hase yeeshee dadka dhaliilaa waxay durba su'aal geliyeen sooyaalkooda dhanka xuquuqda aadanaha. militariga Indonesia ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku saabsan waxa sababay dhimashada nin dhalinyaro ah oo ku geeriyooday galbeedka Papua isagoo ku jiray xero ay militarigu halka ku leeyihiin. Octavianus Betere waa ninka dhintay ayaa loo xidhay falxatooya. hogaamiyaha kaniisadda Kaatooliga ee dalkaasi ayaa sheegay in ninka ay jirdileen askar ka tirsan ciidanku. 75 sano kadib markii qumbuladii nukliyeerka ahayd ee Mareykanku ku dhuftay baabiisay ayaa duqa magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxa uu ku booriyay xukuumadda inay dadaal dheeraad ah u gasho sidii dunida looga tirtiri lahaa hubka nukliyeerka. bamkii waaga lagu dhuftay magaalada Nagasaki waxa ku dhintay 70,000 oo qof iyo dheeraad. ugu dambeynna wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa xaqiijiyay in Mareykanku qorsheynayo inuu dhimo tirada ciidamadiisa jooga Afghanistan oo uu ku soo koobo wax ka yar 5,000 oo askari marka la gaadho bisha November ee sanadkan. xaqiijinta warkan ayaa soo baxaysa maalmo kadib markii madaxweyne Trump sheegay in Mareykanku wado heshiis arrinta lagu gaadhayo. warkii subaxnimada waa nageetaa Kawsar. aad baad u mahadsan tahay. kaasina waxa uu ahaa Axmed Nagaashe oo inala socodsiinayay wararka caalamka ee markana qaybaha kale ee idaacadeena. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabna ee wararka ka imanaya Lubnaan ayaa sheegaya in laamaha ammaanka ay dib u la wareegeen gacan ku haynta wasaaradaha dawladda ee ay muddada saacadaha ah haysteen dadka dibadbaxaya. dadkaasi ayaa ka careysan siyaasiyiintooda gaar ahaan sida ay ugu hortagi waayeen qaraxii dadka badan laayay ee dhacay Talaadadii. dadka dibadbaxaya iyo booliiska ayaa faraha iskula tagay waxaana uu xaalku ahaa sidan. ra'iisul wasaaraha Lubnaan Xasan Diab ayaa sheegay in qaabka kaliya ee looga bixi karo xaaladda hadda taagan ay tahay doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay.
ما في خيمة فوق راس حدا. ma jirto cid aan lagula xisaabtami doonin wixii dhacay. Waa in dhammaan dadka ku lugta lahaa musiibadii dhacday baaritaan lagu sameeyo oo cadaaladda la horgeeyo. Dhab ahaantii ma jirto qaab kale oo looga bixi karo xaaladda hadda taagan oo aan ahayn in doorasho baarlamaan oo xilligeeda ka soo hormartay ay dhacdo si loo helo hoggaan siyaasadeed oo cusub iyo baarlamaan cusub. إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد. kaamil muraani waxa uu ka mid ahaa lubnaaniyiinta dibadbaxa waday tan iyo horaantii Oktoobar waxa uu ku gacan sayray baaqa ra'iisul wasaare Xasan Diyaab isagoo sheegay in fursadaasi ay hore uga luntay. We have asked for early parliamentary elections in October 17, but this political class has refused. Tan iyo bishii Oktoobar ayaan dalbanaynay doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay, balse siyaasiyiinta ayaa diiday. Hadda taasi waa xal waqtigiisa la soo dhaafay oo aan waxba tarayn. Waa in ra'iisul wasaaraha uu xilka baneeyo oo uusan waqtiga naga lumin. Muddo badan ayaan dalbanaynay inuu xafiiska baneeyo. Waxba isma dhaamaan isaga iyo madaxweyne Michel Aoun. Shacabka Lubnaan waxay hadda la haystayaal u yihiin xukuumadda talada haysa iyo maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee Hezbollah. The Lebanese people are being now kidnapped by this government and by an Iranian militia, Hezbollah. Haddaba si aan u falanqeyno xaaladaha ka soo cusboonaaday Lubnaan ayaa waxaan ka wareysanay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faalooda arrimaha dunida muslimka. Qadka telefoonka ee London ayuu igu waramay. iyadoo markii horeba Lubnaan ay ka jirtay qabyaalad diineed oo ka soo bilaabmatay xilligii 15 sano la dagaalamayay iyo heshiiskii Taif oo markastaba ay marxalad soo mareysay laakiin marxaladda imika ugu dambaysa oo dhaqaale xumadii weygagii ugu dambeeyay iyo qaraxii ugu dambeeyay afartii oo dhacay waxa ay aad u qarxisay in waxa weeyaan baarlamaankan iyo dawladdan imika joogta Xasan Diyaab uu mas'uul ka yahay iyo madaxweynaha Michel Aoun ba in ay meesha ka wada baxaan oo baarlamaanku uu isbedelo. Hadda dibadbaxayaasha waxay la wareegeen xarumo dawladeed oo dhowr ah ayna ka mid yihiin wasaarado marka culays intee la eg ay arintaasi ku tahay dawladda Lubnaan. culays xoog weyn bay ku tahay wasaarado badan bay maanta la wareegeen ilaa 4 wasaaradood labada arrimood ay ugu wareegayeen waxay ahayd dibadiisa wax ugu sheegayaan oo wasaaradda arrimaha dibadda tan tamarta oo tamar la'aan baa jirta dalkii Lubnaan markiisa hore waxay ka cabanayeen leyd la'aan iyo koronto la'aan imikana waa bay ka sii dartay oo deyntii qarax ku dhacay dhib badan baa dhacday runtii iyo hoy la'aan iyo waxyaalo badan baa iskugu meersaday marka arrimahaas oo dhan shacabkii inay midoobaan bay noqonaysaa laakiin ma midoobi karaan shacabkii oo shacab kala qaybsan oo hogaamiyaashooda ay markoodii horeba kala qaybsanaayeen oo intaasoo sanana la kala qaybinayay ma midoobi karaan oo dantoodii ma ka dhex tusi karaan inay iyagu yidhaahdaan dad wanaagsan ha la soo doorto mise sidii horuun bay doorashadu u dhacaysaa oo waa doorasho markaa kala qaybsan oo markay kala qaybsantana Lubnaantii horuun bay ku noqonaysaa wax isbedelaya ma jiraan waata markaa imika aynu ogaan karno mudaharaadyada soo socda iyo sida shacabku ay uga jawaabaan waxa weeyaan waxay nimanka aqoon-yahanka ee leh aynu midowno waxa laga saara meesha kooxaysiga. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Xasan Diyaab waxa uu sheegay in xalka uu ku jiro doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay marka maxay bedeli kartaa tallaabadaasi. haddiiba ay ku heshiiyaan dadka waxa weeyaan dhalinyarada nimanka faraha badan leh kacdoonka sameynaysa dad wanaagsan soo doortaan oo baarlamaanka cusub ee degdega ah la soo hormariyay ay noqotay inay ka faa'iideystaan oo dad wanaagsan oo iyaga matala oo wax wanaagsan sameeya oo kooxaysiga ka baxa haddii ay ku guuleystaan shacabkuna waxay soo baxaysaa baarlamaan wanaagsan oo cusub haddii ay sidii hore noqotana waanay siday u badan tahay waayo sida muuqata ama Lubnaan lagu yaqaanay nidaam qabali diiniya diin baa la isku hayaa madaxweynuhu waa tan laga yidhaahdo waa Kristan ra'iisul wasaaruhu waa Sunni gudoomiyaha baarlamaanku waa Shiici marka iyagoo saa u kala qaybsan ayaa haddana waxa yimi Hezbollah oo hub keligii gacanta ku haya oo ay markaasi diidan yihiin kooxo fara badani oo ama dibad ha noqoto oo Sacuudiga iyo waxa weeyaan Yurub iyo Mareykan ama ha noqoto kuwa kale Hezbollah taageeraya Iiraan iyo Suuriya iyo Iraq maanta aad moodo inay iyaga laftooda aanay doonahayn in meesha Hezbollah laga saaro iyo hubkiisa waayo waxa iman karta in la yiraahdo maalmaha kamid ah hubka Hezbollah la soo dhiibo ka laga dagaalamay imika mainka pointka laga dagaalamay waa in la siyaasadayn waa in dhaqaalaha laga hadlo sidii dhaqaalaha dalka loo soo celin lahaa ee si ka sii daraya xumaanaya. Hezbollah waxay ka mid tahay xoogaga siyaasadda ee ugu awooda badan Lubnaan. Xagee ayuu ururkaasi ka taagan yahay waxa hadda socda? In shalay runtii waa la sugayay Xasan Nasrallah uu hadlay hadaladii hore ka duwan muu oran wuxuu buu yiraan anagu shuqul kuma lihin qaraxii ka dhacay waxa weeyaan marfa
بيروت لكن أقون حنولا هيبور حيفا كلمة سو استعمالها مركا حيفا يعني وحوين إسرائيل بعد حيستها مركا إسرائيل بنا نوجا وود صارنا يعني كده هي ده مدارده anaga gudahayaga buur anagu war kama hayno marka buur ma hayna anaga nala saaro kuma na qarxin warna kama hayno waa in marka la eega buur cidii mas'uuliyadda iyo dayaca inta la eeg meel dhan oo dadka dhexdoodii ku taala wax u buug oo soo qarxi kara in waxa weeyaan 6 sano lagu dayaco oo in la xisaabtamo cidii mas'uulka ahayd waxa kale uu sheegay inuu isagu markasta diyaar u yahay kolba dadku waxay ku heshiinayaan laakiin aan la siyaasadayn haddii ay sii socdaan dibadbaxyada hadda ka socda Lubnaan muxuu xalku ku dambeyn karaa mudaharaadkii jirtaba wax uu bedelay oo 4 baarlamaan ayaa iscasilay mudaharaadku laakiin haddii uu isu bedelo sidii waxa weeyaan kooxaysigii waxa iman karta mudaharadii dhowrkii bilood ka hor la isku dilay kuwan shacabkan waxa weeyaan sida u kala taageersan yihiin intay iskugu dhex yimaadaan shaarica ay isku dhex dilaan taasina dawladdu taaguma hayso mana doonayso waana tay doonayso inay xakamayso waatay doonayso in markaa dadku waxay ku heshiin karaan oo ah in baarlamaan cusub oo xilligiisa laga soo hormariyo in la qabto sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Diyaab isniinta wax weeyaan u sheegi doono xukuumadda iyo baarlamaanka kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faalooda arrimaha dunida muslimka oo igu waramayay qadka telefoonka ee magaalada London aan Facebook eego markaan dhageystayaasha qodobkan ay raayigooda ka soo dhiibtay waxa kamid ah Cabsalaan Cabdiqaadir ka George waxa uu joogaa Goldogob waxa uu leeyahay xaaladda dalka Lubnaan marka waxay u muuqataa mid faraha dawladda ka baxday shacabkuna waxay u muuqdaan kuwo marka dulqaadkii ka dhamaaday kadib qaraxyadii waaweynaa ee magaalada Gilgilay laakiin se waxa haboon in shacabku ay ka warsugaan dawladooda Daahir Cabdiqaadir Xasan oo cadaado joogsna waxa uu leeyahay xaaladda Lubnaan ee si xumaanaysa tan iyo markii uu dhacay qaraxii Gilgilay caasimadda wadankaas runtii aad ban uga xumahay waxaana muuqataa in Lubnaan ay wajahayso xaalad adag oo u baahan in laga gacan siiyo isla markaasina u baahan tahay in garab istaag weyn loo muujiyo ayaa uu leeyahay waa hagaag kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba kiisaska fayraska corona ayaa mar kale sare ugu kacay dalka Denmark waxaana inta badan lagu arkay magaalada Aarhus oo ah tan labaad ee wadankaasi ugu weyn mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in Soomaalida ku nool magaaladaasi ay ka mid ka yihiin dadyowga ugu badan ee uu ku dhex faafayo cudurka Sahara Maxamuud Cali waa wariye degan magaalada Aarhus waxay ugu warantay ama ay iiga warantayba arrimahaasi shir jiraa'id oo uu qabtay doomiyaha degmada Aarhus ee caasimadda labaad ee dalka Denmark ayuu wuxuu ku sheegay tirakoob la sameeyay dhawaan in tirada ugu badneed kiisaska cudurka coronavirus laga helay ay yihiin dadka Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi runtii arintaasi kadib walwal ballaaran ayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan dalkan Denmark ku nool soo food saartay markii muxuu ahaa la ogaaday in cudurkani uu dib u soo laabtay Soomaalida ayaa carabka lagu dhuftay oo farta lagu tilmaamay in ay sabab u yihiin dib u soo noolaashada cudurka coronavirus ee ka dilaacay mar kale oo tiro badan dadka laga helayna ay noqdeen dadka Soomaaliyeed ee degan caasimadda labaad ee magaalada Aarhus marka maxaa lagu sheegay sababta keentay in cudurka uu si weyn ugu dhex faafo Soomaalida dadku waxa ay leeyihiin dhibaatada jirta iyo meesha ay ka timid waxa weeyaan in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dhaqan ahaan u leh in ay isku tagaan isbooqdaan xitaa haddii cudurkii la sheegay tallaabooyinka laga soo saaray iyo waxyaabaha loo maro oo yihiin tusaale ahaan inaan la isku tegi karin oo aan la isbooqanin in qof walbaaba gurigiisa uu ka ekaado iyo reerka markaa uu la degan yahay ama familkiisa ah oo uusan qofku markaa uusan isdhiganin oo uusan tegin meelaha la isugu yimaado waxaan ogeyn oo dalka Denmark ka jirtay in guud ahaanba la wada xiray oo isku imaatinkii oo dhan la joojiyay sidaas darteedna ay weli sii socotay in dad badan oo Soomaaliyeed ay dhinac mareen tallaabooyinka loogu talagalay iyo kiisaskii la rabay in ay maraan oo ay dawladda soo saartay iyo wasaaradda caafimaadka oo ay iska indhatireen oo ay iska socdeen oo dadku aad mooday inay isbooqanayaan guryaha isku tegayaan magaalooyinka kale isku booqanayaan qofkii oo laga yaabo cudurka in uu qabo haddana calaamadihii uusan ka muuqanin ayaa waxaa sababaysay dadkii kale iyo bulshada kale inuu ku sii fidiyo kadib markii la ogaaday oo la baarayna tiradii ugu badneed ee la baaray dadka Soomaalida ayay noqdeen oo cudurka
coronavirusku dib u soo cusboonaysay. waxaad sheegtay in cudurka uu si weyn uga dhex faafay bulshada Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi. marka dhanka dawladda markayna eegno maxaa tallaabooyin ah oo ay qaaday si loo xakameeyo fiditaankiisa? waxa wada hadlay ururo badan oo ka jira oo midoobay iyo dawladda gaar ahaan degmada hadda uu kiisaskani ka soo cusboonaaday ee Aarhus ee caasimadda labaad ee dalkani Denmark. kulamo ayaa jiray oo la yeeshay oo looga hadlayay sidii loo xakameyn lahaa. waxa la isku afgartay iyadoo la wada shaqeynayo oo xagga dawladda iyo ururada Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed hormuudka u ah sidii loo xakameyn lahaa. waxa la soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in haddii la arko dhowr qofood 3, 4, 5 meel wada taagan oo dadka Soomaaliyeed ah in la yiraahdo kala taga oo gurihiina ku ekaada, iyadoo arintaasina garab ay ka siinayaan ama ay iska kaashanayaan dawladda iyo gaar ahaan booliska. waxa kaloo la isku raacay in qofkii laga helo cudurka coronavirus ee la ogaado in gurigiisa uu ku ekaado, lagu booqdo guriga ama lagu ogaado inuu guriga joogo uusan soo bixin, uusan bulshada soo dhaxgelin. Sahro ay ka waran doorka jaaliyadda Soomaalida ma taageersan yihiin dadaalada dawladda mise waxay u arkaan kuwa iyagu ka dhan ah? jaaliyadda Soomaaliyeed waxa la isku afgartay sidii loo wada shaqeyn lahaa. cudurkan waa cudur dadka Soomaaliyeed kaliya aan ku dhicin laakiin guud ahaan adduunka oo dhan saameyn weyn ku hayo, gaar ahaan dadka hadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada ee la sheegay ee caasimadda labaad ee Aarhus. waxa la isku raacay jaaliyadda iyo madaxda degmadaasi sidii loo wada shaqeyn lahaa. waxa la xakameeyay aroosyada la isugu tagi lahaa, waxa la xakameeyay masaajidadii iyo meelaha kale oo dadku ay ku kulmi lahaayeen. guud ahaan waxa hadda loo wada istaagay sidii loo wada shaqeyn lahaa, dadkan Soomaaliyeedna ay ugu qaadan lahaayeen cudurkani inuu yahay cudur halis ah oo aan sahlaneyn, isla markaana loo raaco tallaabooyinka loogu talagalay in la raaco, taasoo tusaale ay tahay in la kala fogaado 1 mitir, in qofka haddii uu isku arko calaamadaha uusan bulshada soo dhaxgelin, iyo guud ahaan dawladda waxa ay ka soo saartay in la raaco. Sahra Maxamuud Cali oo ah wariye degan magaalada Aarhus ee Denmark ay ahayd oo ii waramaysay. markana wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa qaybo badan oo dalka ah ka dabar go'ay noocyada kala duwan ee duurjoogta ah kadib markii la ugaarsaday ama ay waayeen daryeelkii loo fidin jiray. hase yeeshee waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee deegaano ka tirsan Eyl iyo Dangorayo oo Puntland ah ayaa 28 sano ka hor soo rogay xeer lagu ilaalinayo duurjoogta ku dhaqan goobahaasi, waxa ayna dejiyeen hab loo ganaaxo dadka ugaarsada. nabadoon Raage Xirsi Cali Bootaan waxa uu ka mid yahay odayaasha xeerkaasi dejiyay. qadka telefoonka ayuu ugu waramay wariye Axmed Caawil Jaamac. annagu ilaa 92 burburkii Soomaaliya baan waxaan ka soo saaray odayaashii xilligaa joogay qaynuunka adeer deegaanka lagaga dhaqmo degmooyinka hoostaga Dangorayo iyo Eyl. shuruudaasi waa fara badnayd, deegaanka oo dhan bay khusuusay. ugaarta baa kamid ah, waxa kamid ah oo xeerkeedu yahay cidda disha xabadda gorayada waxaa nooga xeeran oo xeerkii ka soo baxay xilligaa markaa lacagtii joogtay waxay ahayd $300. xabadda garanuugtahay lamid bay ahayd. deerada waxaa nooga xeeran $200 iyo ganaax iyo xarig. sagaalada waxaa ka xeeran $100. marna dib ugu fiiriseen maadaama waqti hore arrintan aad degsateen? waa loo jeediyey qoraalla hadda ka dambeeyo 2019 la soo saaray xeerkii oo la cusboonaysiiyey baa ka dambeeyey waxaan lagu dhaqmaa. hadda report baa naga yaala wasaaradda deegaanka iyo qolyaha amniga. reportkaas oo aan ku dalbanayno waxqabad sida ciidan awood iyo wax kale oo ay nagu kaliftay dhibaatooyin loo geystay ugaarta iyo deegaanka. maadaama aad sheegtay ugaartii iyo ilaalinaysan dhul badan oo Soomaaliyana ay haatan ugaartii ay ka nabad guuday, ma jirtaa marka ugaar badan oo aad aragtaan oo deegaanka ku nool? ugaarta waa arki karnaa idinka saxaafadda, waa idin soo sawiri karaa, waa mari karnaan. caan weeye madaxda wadanka, dawladda ha noqoto ama hay'adaha maxalliga ha noqoto. hadda ka hor waxaa dhacday hay'ad baa soo tagtay, waxay marnay meesha la yiraahdo Uskure, ugaar bay tiriyeen 65 xaboo deeraa bay noqotay. waxay tageen meel la yiraahdo Dhooyo oo iyadana aan waxba ka fogeyn, waxay ka tiriyeen 70. waxay tageen meel baqbaq u dhow oo la yiraahdo Dooxada Baaqama tire 96 markii tirinayay buu ka qaldamay. in cadaan la socday
ninkii darawalka ah wuxuu ahaa nin deegaanka u dhashay oo ninka cadaanka iyo qolada hay-adda waday wuxuu yidhi maxaa u tirsanaysaa carruurta xilsa calibootaan weyo ma garat macnaha sidaasaa waxaad u arkaysaa tirada intaa leeg haddaa lasoo tusi karaa hadda xilliga kan baa haddeer waxaa noo maqan annaga ribood dacwaa oo aan rabno in aan ku soo qaqabano dad dhibaatooyin geystay oo ugaar laayay mararka qaarkood waxaa dhacda in deegaamadu ay isku soo guuraan oo kale oo meeshaas oo kale uu roob uu ka doo marka dadka aan xeerka la socon maxaad u sheegtaan annaga dadka reer Puntland oo deegaamada ku nool oo sida reer guuraaga oo kala maxalliyada la isu yimaado markay loo yimaadaan waa ogyihiin iyagaa ka malaka ama karkaar ha joogaan ama sool ha joogaan ama togbeer ha joogaan ama ha joogaan warqadahaasaa la isticmaalaa waxa weeye wax la doondoono maaha qoraalkooda iska yaal waa la cusboonaysiiyey iyagii oo hadda warqadihii soo baxay 92 dib baa laga cusboonaysiiyey waxaanu ku boorinaa ummadda Soomaaliyeed sida aan anagu dhulka nabaadguurka caalufka magaalooyinka laynta duurjoogta ugaarta iyo wixii lamida inay la shaqeeyaan oo aan wada shaqeyno oo ka wada shaqeyno oo deegaan walba markii aynu saarada nolosha ummadda Soomaaliyeed soo noqonaysa waanu kula dardaaranaa muhiimadda ay leedahay bal arrimahan hadda ay isku taxalluujinaysaan oo deegaanka dadka aan la socon maxaad dhihi lahayd muhiimadda ay leedahay waxa weeye duurjoogta way kala jirtaa qayb waxa weeye waa habar dugaag oo xoolaha la cunaan oo dadka cunaan oo iyagu iska baleynaysa midna waa duurjoogta xayawaanka markay baahi jirto la cuni karo la qala karo dhulka waxay u tahay bilic iyo qurux iyo nabaad waxay u tahay hantiba guudaana waxay u tahay sharaf oo waxa weeye waad ogtiin adduunka waa la soconaa dadweynaha qayb baan laga helnaa lugaara inta oo dakhliga baa ka soo geli jiray dawladda Soomaaliya meesha duurjoogtu ku xareysan tahay faa'iidooyinka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta inta ugu fudud baan ku soo qabtay laakiin waxa weeye nimcooyin ilaahay keenay ilaahayna ku galladaysay weeye nabadoon raage xirsi cali bootaan ayuu ahaa oo u waramayay Axmed Caawil Jaamac Afrikada bari saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo qadar 22 daqiiqo wararkii ciyaaraha ay inoo soo socdo balse markan hal abuurka mali awaalka ah waa qayb ka mid ah quruxda qoraalada iyo suugaanta afafka adduunka oo dhan gaar ahaan Soomaaliga dhageyste weli ma maqashay isbitaalka la dhigo dadka jacaylku ku dhacay ee la ildaran horta ma jiraa mise jeclaan lahayd inaad booqato oo aad soo aragto bukaanada jiifa caadiyan wax jira ma aha laakiin awoodda hal abuuradu wax aan jirin ayay ku daawadsiin kartaa sida isbitaalkan oo abwaan xasan daahir ismaaciil weersame maanso ku muujiyay isbitaalkan ee khiyaaliga ah iyo dadka lagu baxnaaniyoba waxa uu abwaanka ugu waramay wariyaha BBC-da ee Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmed isbitaalka boholiyowga horta maasada magaceeda la yiraahdo laakiin se sheekadani sheeka aniga igu bilaabantay horta ma ahayn marka hore in qoraayo Axmed Deeq la yiraahdo imika Masar jooga ayaa wuxuu qoray maqaal isbitaal kan kaga hadlay wuxuu yiri isbitaalkan waxa kolkii hore agaasimo guud ka ahaan jiray Maxamed Cali Kaariye laakiin se imika weersame agaasimaha guudka markii isagu saayiri ayaan aniguna jeclaystay inaan isbitaalka si official ah adu furto aan u furanday yani maasa ka dhigan garanaysan si rasmi ah oo aan maaseeyo sheeka khiyaalo de takhayula ayay ahayd marka wax dunida ku yaala maaha waa dal heli karaa kolkaas saasay maasadu asalkeeda iyo awalkeedaba ay ku dhalatay waana da isbitaalka boholiyowga maasada laftigeeda bal si kooban maxay sheegaysaa yaala dadka la dhigayo maxaa hawsha lagu qabtaa ay tahay horta dadkan meesha yaala isbitaal caadiin horta meesha dadka meesha yaala waa jacayl hayo laakiin sa isbitaalku dadka wax kale kuma kordhinayo kaliya wuxuu ku kordhinayaa uun jacaylka kiisa fiican inuu dadka u sheego oo ku yiraahdo lacala hadii aad xitaa inta weydo waxba ka sii sheegin ceebaynin waa intaas oo adigoo cirfaystay iyaduna ay armal tahay session aakhira leebka yani takhayulkaygii baan ayaa sii galgeliyay iyo xumad jibin weeye ha exactly way noqonaysaa kolka waxay oranaysaa waa caan dhismaha goobtu waa cayn dhir iyo doogle waa meel cirkiya roobku casarkii ku soo hoydo cirib iyo tingeedkiiba ubax cadar la moodmoodo carafkiyo udgoonkiisa ku cilaantay yaashiisa cusub aan nafluhu daaqin cabsi gelinin jiilaalku calcalyadu afurinayso qorraxduna kul caarcaarsha ka calaacal saabayso
kolba cirif ka marinayso camiruu dhulkaba daahay qalbiyada cod dhabanaansha ereyada cindiga qooma ciladaha naxliga beera waa goob ka wada caagan waa caalam naxariisa qof cadiban kob lagu baanto cusbitaalka boholyowga meesha waa meesha heesihii qaraamka ahaa ayay dhegaystaan kolkaa bukaan jiifku waa caato duul caday ka dhuubdhuuban saamaleelku waa caadi waxyaabahan bini'aadamka kale ay kaga duwan yihiin saamaleelka lama ogolo markan qofku caadiga yahay iminka laakiin kan saamaleelka waa loo ogol yahay saamaleelku waa caadi sayloonku waa cuudka cuntaduna qaraam weeye dhar casaana mooyaane calal kale ma xidhanaysid culumaa ku sugan goobta casharkooda koowaadna qofka calafku kuu diiday waa lama cambaareeyo iyadoo carmaliyowday ama uu ciraba yeeshay waa intood iscugataane muxubadaha eebaynin dadka halkan la keenay horta waa dad kolka horeba jacaylka qaybtiisii kareebnayd bay la soo kulmeen kolkaa waxa koowaad loo sheegay waxa weeyaan colaad iyo xumaan ha u qaadin ciddii aad jeclayd ilaan waad jeclayde haddaad xitaa isweydeen ama uu ku diiday ama waxa weeyaan waxba ha ka sheegin u duceeyuun ma garanaysaa halkan wiil casbaa jiifa carab weeye bayhoofa magaciisu waa caarid qof caloolsan weeyaane casardhiiq midii baabtay sow caadil kuma beegin iyagoo cirkaas jooga islahaa carooskiinnu ha ka dhaco cirjiidhaasi sow cirarku muu meerin oo canabdhin lama siinin sow ceeshka muu diidin sow jiifka muu caagin sow tuu u cayngoostay meher laguma sii ceejin cadrad kale la kulankeeda cindigiisa kama goynin carrigiiyo dhulkiisiina cawadaran kamuu goosan inantani cadceedeennu waa mid kale waa bukaan kale inantani cadceedeennu quruxdeeda cawriyeyso ee camal samaanteeda cajabay dad wada yaabay cosobay gob weeyaane waxay cugatay maalaawe qalbi dhagax jacayl caasi lahashada ku caarooda xiisaha ku cadanyooda naxariista ceelkeeda cisho qura aan darin koobka isi badan ma cabanayso ciilbade ma haaraanto haddana inantaas ha mana cabato waa u dhalatay isi badan ma cabanayso ciilbade ma haaraanto iyadoo haddana xaaladaasi ku jirta deetana casharada waxaa kaloo ka mid ah milaygaad cambara seegto ama cuud laguu sheegto caashaqu markuu waayo ciirsiyo bokoolkoosha qalbi waa cidloodaaye welibana cataabaaye tabashada hadduu cawdo wadnahaagu ciishoodo culimada u baala eegta cindiyada la weydeeyey xadradooda caadayso caashaqa kiniinkiisa balcun inaad ka soo rayso cabashada taxliisheeda 3 koob dharaartii cab calbashada qardhaasteeda curcurkiya ku xidho qoorta hadduu cudurku tagi waayo jacaylada cilaajkooda iska jiifsa calwaaga abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo u waramayay Sidiiq Maxamed Burmad ayuu kaasi ah markana ciyaaraha hadaan eegno Barcelona ayaa u gudubtay wareega 8-damaadka ee Champions League kadib markii ay kooxda Napoli kaga adkaatay 3-1 Barcelona waxay sidoo kale ku soo garaacday wareegii hore ee ciyaarta taas oo goolasha ka dhigaysa 4-2 sidaasna ay ku hartay Napoli Chelsea dhanka kale iyadana way hartay kadib markii Bayern Munich ay garaacday 4-1 aggregate kana ka dhigtay 7-1 wareega xiga ee ciyaarta Bayern Munich waxay ka hortagi doontaa Barcelona halka Man City-na ay is arki doonaan kooxda Lyon Atalanta waxay la ciyaari doontaa PSG halka Atletico Madrid ay la ciyaari doonto RB Leipzig guud ahaan waxay inta nooga dhan idaacadeennii subaxnimo oo Maxamed Cabdiraxmaan uu soo saaray anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aan idin la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga nabadgelyo